بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan ku dhex jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Sida awgeed maanta muxuu ahaa kelmadan waxaan ku soo qaadan doonaa aadaabta uu leeyahay soonka iyo sunnooyinka soonka ayaan ku soo qaadan doonaa. Aadaabtiisa iyo sunnooyinkiisa waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan suxuurta. Suxuurtu waa sunno, waa runtii sunno qaali oo muhiim ah oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sameyn jiray. Saadar dadka inta badan way sahashadaan arrinta ayada ah. Marka muxuu ahaa inuuna qofka muslimka uuna sahashanin maxaa yeelay suxuurtu baraka iyo qiimo ayaa ku sugan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska wuxuu ku leeyahay akluhu baraka. Cunitaankiisu wuxuu leeyahay cuntada in la cuno oo suxuur la cuno baraka ayaa ku sugan ee falaa tad'uuhu ha ka tagin. Walow an yajri'a ahadukum jur'ata min ma. Inuu qofka kabasho biyo uu ka bado oo haba noqotay qofku inuusan ka tagin. Xitaa dadka qaar hadday leeyihiin cuno iyo ma isticmaali karo ama culays waxba ka helaa inuu intuu soo kacata ugu yaraan uu biyo cabo waa wax qaali ah. Marka fiir maxaa dhacay qofka saayal muxuu helayaa fa inna allaha azza wa jalla wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay malaa'iktiisu waxay u ducaynayaan dadka suxuurta. Marka waxa helaysaa qofka suxuurta wuxuu helayaa ducada ayuu helayaa oo Ilaahay malaa'iktiisa ayaa u ducaynay. Xadiiska nabiga wuxuu ku leeyahay soo ehlu kitaabka qaal wuxuu leeyahay faslun ma bayna siyaamina wa siyaami ahli alkitaabi akalatu sahri. Nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inaga iyo yahuudda soonkooda waxa inoo dhaxeeya suxuurta. Marka arrintan in yahuudda lagu khilaafo oo inaga intaad soo toosna aan wax ugu yaraan aan suxuurno ama biyo ugu yaraan kabasho biyo aynu cabno taayadana waa muhiim. maxaa yeelay xadiiska nabiga wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam suxuurta baraka ayaa ku sugan. hal arrin ayaa rabaa inaan baraarujiyo dadka qaar si khaldan arrinta ayada u fahmo oo wuxuu soo toosay habeen barki intuu soo toos oo cunno fara badan intuu cuno ayuu seexanayaa salaada ka tagaysta ayada waa khalad. sida saxarka waxaa la yiraahdaa habeenka aakhirkiisa ayaa suxuurta la yiraahdaa qaybta dambe habeenka 10 saac ilaa hal meelaha inaad soo toosto oo muxuu ahaa suxuurato muxuu ahaa konton aayadood inta la akhriyo kadibna asxaabta nabiga waxay yiraahdeen salaada la gali jiray. marka waa habeenka dhammaan rabaa loola jeedaa mooye habeen bar in la soo tooso cunno la cuno la sii seexdo waa khalad. waxaa muhiim marka in qofku uu ku dadaalo in muxuu ahaa uu arrinta ayada uu ka fool jignaado oo mar walba uu ogaado muxuu ahaa inay tahay wax weyn oo sunno ah haddana inuusan sunnadii uusan waajibka uusan kaga tagin waa muhiim. soo kale sunnooyinka waxaa ka mid ah in afurka la dadajino waxay ka mid tahay sunnooyinka ramadaanka ay ka mid tahay waa muhiim oo nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu al-fitr. nabiga wuxuu leeyahay dadka muxuu ahaa khayr kama zuulayaan intay afurka ay dadajinayaan. marka waxaa la rabaa afurtan in la dadajiyo dadka qaar oo muxuu ahaa dhahay xaadeed intay ka madowaato iyo waxyaaba noocaas oo kale oo maanta idil iska jooga ee laga yaabo in muxuu salaada masaajidda laga soo bax uu leeyahay wax baan hubinayaa taayada waa khalad. waxaa la rabaa marka afurta in la dadajiyo saas ayaa sunno ah. taana macnaheeda kama dhigna in muxuu ahaa aad 11 barkiba aad sii cunto kama dhigna in la hubsado waa muhiim hase yeeshee muxuu ahaa waa inaan aad loo xadgudbino oo lagu dadaalo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo muhiim in la duceysto oo muxuu ahaa nabigeena calayhi salaam markuu afur wuxuu dhihi jiray ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ودي جرنبيga haraadkin uu inaga tagay xididadiina waa ay qoyeen ajirkin waa uu sugnaa saas uu dhigi jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam. marka walaalayaal inaynu ku dadaalno in muxuu ahaa inuu suxuurtan aynu dib dhigno afurtan aynu dadajino. wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.